galab wanaagsan waa anigoo ah Mustafa Martin Maxamed waxaan doonayaa inaan galabta idiin faahfaahiyo programka la yiraahdo Islamic Loan ama lacagtan xalaasha ee guryaha laga iibsaday Mareykanka maxaa dhaba maxaase ka jira saddex program ayaan isdul taaganaa mid waa programka la yiraahdo mudaharaba musharaaka iyo ijaara saddexda program maxay kaga duwan yihiin saddexda program ee Mareykanka hore uga jiray ee la yiraahdo contract for deed optional to buy lease saddexda program maxay saddexdaasi kaga duwan yihiin maxaa si xalaal maxaa si xaaraana waxaan isdul taaganaa gawaadhidan Soomaalidu ay qaadatay Toyotahu ma leeyahay interest xalaal ma yahay waxa imika la soo saaray iyaguna caana xalaal caanahaasi maxay kaga duwan yihiin caanihii lo'dii Soomaaliya iyo lo'da joogtay Australia iyo lo'da joogtay Holland caanaha sac laga leysaa oo dhami ma xalaal ba mise waa xaaraan waxaan isdul taaganaa sharciyadii guud ahaan Mareykanka ugu talagalay xagga sharciyada lacagaha amaahaha maxay kaga duwan yihiin lacagaha la leeyahay waa ijaara waxaanu kala adeegsanaynaa programkii isaguna caadiga ahaa maxaa lagu talagalay dadka islaamka inay suurto geliyaan iyo siyaabaha looga iibsado waxaanu iyagana in yar qeexaynaa quwadda dadka muslimiinta ee dalka Mareykanka inta ay leegtahay iyo inta ay ku wajahan tahay marka hore waxaan doonayaa idiin sheego muslimiinta waddanka joogta waa muslimiin tiradoodu aad ay u badan tahay waa qodob waxa lagu qiyaasay dhaqaalahooda inuu aad u kobcayo gaar ahaan markii loo eego gobolada qaar waxa muslimiinta imika ugu dambeysay oo waddanka timi waa Soomaalida marka guryo badan oo Soomaali laga iibiyay ayaan doonayaa isdul taago iyo waxyaabaha xalaala maxaa ka jira bangiyada bixiya waxaan programkan ugu talagalay gaar ahaan dumar badan oo Soomaaliyeed oo aad iyo aad arrinta ugu mashquulsan oo wali ku dhabaqsan wixii xaraana iyo wixii xalaala ayaan doonayaa programkan inay si ka faa'iideystaan maxaa keenay inay Soomaalidu qaadato credit card oo aanay u arag credit cardka oo interest leh inuu yahay xalaal credit cardku waxa weeyaan waa wixii aad alaab ku iibsan karto oo dhan dukaamada hadday noqoto iyo meel kasta 90% Soomaalidu credit cardka way haysataa isagoo interest leh kamana hadasho mana tiraahdo maxaa xaaraana maxaa si xalaala waxa kale oo jira caymiska amba waxa la yiraahdo risk management ee lagu talagalay caymiska iyo insurance isagoo ma xaaraanba mise waa xalaal inagu dawladaha islaamka waxaan u naqaanaa insurance inuu yahay xaaraan waayo wax kasta oo saadaalin kara khatar ku soo socoto oo lagaga feejignaan karo oo ka difaaci karta diinta muslimka ma ogola laakiin maxaa keenay 90% inay dadka muslimiintu ay haystaan oo ay tahay arrintaasi sharciya qofkuna aanu kaxayn karin gaari hadaanu insurance haysan haddii aanu haysanna maxaa khataro gaari karaa waxaan halkan kaga hadlayaa waliba arrimo badan oo anigu goobjoog ka ahaa 20 sanadood ka hor ka dhacday gobolka Minnesota waxaan xasuustaa bari Soomaalida taksiilayaashii arrintaas oo aad u weyneed gobolkan ay yiraahdeen ma qaadi karno qof ay wata iyo qof khamri cabsan iyo gabdhaha suuqa ka adeegsada ma qaadi karno oo arrintaas ay noqotay arrin caam noqotay ummadii oo dhaadhay sidaan u xalinay iyo sidii anigu aan uga qayb qaatay iyagana in yar ka taabto arrimaha ka dhacay bariga gobolkan Minnesota marka su'aasha imanaysa horta waxa weeyaan maxaa xalaal maxaa si xaaraana waxaan qeexaynaa qodobkan la yiraahdo muharaba iyo musharaaka iyo ijaara kelmadu af carabi waxa weeyaan waa kiro amba waa leasing weeye qof kasta marka guri iibsanaya oo qaatay programkan ijaara la yiraahdo guri ma iibsan ee wuxuu qaatay waa kiro qof baanu ka kireystay guriga programka kale la yiraahdo mudaharaba iyo musharaaka labada program midna waxa weeyaan ka mudaharaba haddaan ku horeeyo waa cost plus profit waxay ka dhigan tahay lacagtii lagaaga iibiyay ayaan macaash dul saaranaya ka kalena wuxuu ka dhigan yahay waxa la yiraahdo mudaharaba waxa weeyaan annaga ayaa programka guriga iibsanayna dabeedna adiga ayaa mustaqbalka nagala wareegaya saddexda program qodobada dul taagan waxa mulkiyadda qof kasta oo guriga iibsanaya waa in horta mulkiyad xora uu leeyahay oo halkaas ku noqda qofkii guriga leh haddii mulkiyadda lagula wadaago ma wada oran kartid qodobadaas ayaan gurigan leeyahay ma oran kartid waxaan hadabana eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed oo lacag badan laga qaaday oo la yiri waxa laga iibinaya lacag muslina su'aasha horta waxa weeye ma jira wax la dhaho Islamic Financial Institution ma ka jira dalka Mareykanka maya ma kama jiro haba yaraatee bangi islaama oo Mareykanka deganay ma jiro waxaana keenaysa dhowr qodob Mareykanka waxa jira waxa la yiraahdo arkaan uu ku shaqeeyo
arkaanta uu ku shaqeeyo kow waxaa ka ah qofna waxa la yidhaahdo waxaa ka mid ah arkaanta religion, affiliation, political affiliation, amba waxaa kaloo ku jira waxa la yidhahdo income, isaguna oo qodob ah oo qofka ah dhaqaalihiisa la soo galay inaan lagu takoorin, diintiisa inaan midabkiisa lagu takoorin, gabadh iyo nin wuxuu yahayna inaan lagu takoorin, waxyaabahaasoo dhan iyo politically halka uu taagan yahay hadduu dimuqraadi yahay iyo hadduu republica yahay inaan lagu takoorin. taasi markaa waxay dhiganaysaa qof kasta oo maraykana oo sharci leh oo dalbadan lacaga bangi laba qodob baa lagu eegi karaa: income ka soo gala iyo sumcadda creditkiisa, cabirkaasi intuu leegyahay inuu yahay qof la aamini karo. labadaa sharci ayaa ugu muhiimsan, waxa kale oo dhan haba yaraatee ma jirto. marka halkan waxaan uga sheegaya ummadda Soomaaliyeed inaanay jirin haba yaraatee bangi la yidhaahdo Islamic Financial Institution. haddaba xaggee ka yimaadeen bangiyadan le waxaan nahay islaamic? bangi kasta horta lacagta waxay ka timaada waxa weeyaan waa dadkan tax payerska la yidhaahdo amba dadka cashuurta Maraykanka bixiya lacagaha laga soo jiro dowladdu. lacagtaas ayaa bangiga dhexe gaadha, qof walba markaa inbuu kasii qaata, commercial banku inbuu kasii qaataa, mortgage lendersku inbay kasii qaataan, credit unionku inbay kasii qaataan. marka waxa weeyaan lacagahaas ayaa lasii kala dilaalaa. hal la kala dilaale bangigan kule islaamic baan ahay wuxuu hayaa maaha bangi islaam maaha, brogram buu hayaa. brogramkaasi baa haddaba xagguu ka yimi? waxa weeyaan brogramkii caadiga ahaa ee Maraykanka ahaa ayay ka dhigayaan brogram muslina. sideebay haddaba uga dhigaan? halka Soomaalidu ay u baahan tahay inay fahanto waa caynkan. tusaalaan ku siinaya qof Soomaaliya oo sumcad leh wanaagsan, oo credit leh wanaagsan, hadduu lacag dalbado waxa lagu siinayaa halkan imika interestka 3%. qofkaasi waxaa laga yaabaa inuu ka walaaco bangiga caadiga ah lacagta siin lahaa, dabeedna uu tago qolo Pakistan amba Hindiya amba Afghanistan oo is wadata oo oranaysa waxaan nahay lacag muslim ayaanu haynaa. sharcigiisa eegayaan, creditkiisu wuu fiican yahay, qofkii Soomaaliga incomekiisuna wuu fiican yahay. bangigii uu u tagi lahaa qofka Soomaaliga caadiga ah suuqa ka firnaa ayay iyagu markaa u geynayaan alaabtii, dabeedna waxaa loo soo ogolaanaya lacagtii. ka soo qaad waxa lagu siiyey qofka 4% way u direenun, qofkii Soomaaliga bay ku soo celinayaan, waxay ku siinayaan 6%, 2% bay dul saarteen. dabeedna waxay oranayaan walaalay salaamu calaykum akhwaan, lacag baxnu ku haynaa xalaala, 6% baad bixinaysaa, laakiin labada percentage-kee hore waad iibsanaysaa oo 25,000 baad naga siisanaysaa. gabadhii Soomaalida ahay 25,000 ayay ka qadinteen, dabeedna waxaa la siiyey 4%-kii caadiga ahaa ee uu bangigu soo ogolaaday. haddaba waxa weeye su-aashu halkee bay xalaal kaga dhigayaan? xalaal waxay kaga dhigayaan guryaha marka la iibsado wuxuu ka wareegayaa oo u tegayaa dowladdii qofkii iibinayey iyo kambanigii cashuurayay buu u tegayaa. kambanigaas markaa waa inuu caddeeyo qofkan wax ka iibinayey, lacagtii laga siinayey iyo intay ahayd iyo interestkii lagu siinayey. dabeedna hadhowta halkaa waxaa ka caddaanaysa mar labaad gabadhii Soomaalida in la yidhahdo magacaagu kan ma yahay, guriga intaama lagaa siiyey, interestkii saxda ahaa ee 4%-kii waa kanaa lagu siiyey. dabeedna halkaa waxaa ka maqan qodobkii ahaa 6%-ka, waayo laba cash ayay kaga qaateen. dabeedna gabadhi waxay la kulmaysaa kow interestkii caadiga oo yaalla, dabeedna waxay la kulmaysaa lacagtii 4% laga siiyey oo bangigu markii horeba u golaa iyo $25,000 ayaa ka maqan. markii gabadha arrintaa ay la kulanto inta badan Soomaalidu 90% waxay ku oranayaan ilaahay baa qadaray, mar haddaanu dembiga aniga saarnayn isagoo qirtay aakhiradiisa ayuu la tagayaa. waa sax weeye, iyadoo dembigii way iska maydhay siday u aragto, laakiin $25,000 ayay ka dhacanta. boqolkiiba Soomaalida kama goyn kartid inta rabta lacagta muslimiinta si kastood uga akhrido oo weligood qiil unbay helayaan, laakiin lacag islaamiga oo Maraykanka taallaa ma jirto. waxaanay ka hor imanaysaa sharciyadii lagu talagalay bangiyada, waxay ka hor imanaysaa sharciyadii Maraykanka ayay ka hor imanaysaa lagu dhisay waddankan. ogow jaamacadaha Maraykanka qof kasta waa inuu 4 sannadood qaato. haddaad tahay muslim iyo haddaad tahay Hispanic iyo haddaad tahay Christian iyo haddaad tahay Jewish ma kala jecla. waajibaadkaa markaad gudato ayaad ka baxaysaa jaamacaddaas. waxa weeyaan gaari kasta oo meel yaalana iibkaas ayuunbaad ku qaadanaysaa, amba muslim ahaw amba talyaani ahaw amba qofkaa doonta ahaw. bangiyadan caadiga ee Soomaalidu ay u tegayso oranaya ma aha bangi caadi, waa qof meel inta badan iska fadhiya oo kursi iyo miis meel dhigtay, kaasunbaa sii dilaalaya siday alaabtaba u dilaalaan. markii uu qof u tagay qof Soomaaliya quri uma tago, waxa u taga dad badan oo kala jaada. laakiin haddaba dadku maxay ugu tagayaan? waxa iyaga u tago suuqa ka raadsadaan qof kasta oo aan sumcad wanaagsan lahayn amba aan lahayn income wanaagsan
ayaa markaa ay ka sii iibiyaan lacaga qaaliya. markaa dadka Soomaalidu inta badan waa inay ogaadaan qofka hadduu yahay magaciisu creditkiisu fiican yahay income-na leeyahay inta badan lacagahan uma baahna dhib badan ayaana ka taagan. mararka qaarkood waxaa aniga soo maray kaysas aan goobjoog ka ahaa oo nimankan wax dilaala iyo culimada masaajidku ay isku xidhan yihiin oo ay markaa ka dhaadhiciyaan dadka qaar inay lacagtana tahay lacag laakiin runtii lacag xalaala ma aha. waxaa kaloo jirta in la yidhaahdo gawaadhidan Toyota ay Soomaalida aad ugu walaatay maya haba yaraatee gaadhigaasi wax xalaala gaadhiga Toyota ay Soomaalidu ku walaatay isaguna maaha. qof kasta oo Soomaaliya gaadhi qaadanaya waa inuu buuxiyo application, waa in creditkiisa la eego, waa in sumcadiisa la eego. markii intaa la eego ayaa loo ogolaanaya gaadhiga inuu qaato. laakiin waxay sameeyeen pre-calculation amba xisaab xidh bay ku sameeyeen boqolkiiba inta interest ku karayo macaashka baa lagu daray dabeedna sidaasuu qofku ku bixinayaa gaadhigiisii. marka gawaadhida Soomaalida ay wadataana ma aha xalaal, waxa weeyaan iyaguna waa finance baana loo dalbaday, applicationkana way buuxiyeen. lamana siinayo qofku haddaanu credit iyo shaqo lahayn. waxaad samaysaa bal u tag bangi muslina amba qolo muslim sheeganaysa waxaad ku tiraahdaa lacag siiya, waxaan ahay qof muslin ah, waxba ku siin maaya mar haddaan sumcaddii iyo creditkii wadan. taas ayaana keenaysa in arrintan ay sidaa u dhacdo. waxaa halkan jirta iyaduna kelmaddan caymiska oo iyaduna halkan berigii hore dhib weyn ka jirtay, laakiin hadda ummadda Soomaaliyeed ay iska wada ogolaatay oo marba marka ka sii dambaysa ay waddanka la qabsanayaan iyaguna ayaa halkan ka jirta. oo cashuurankaas oo ah hadda isaguna risk management amba khataro waaweyn oo lagaga hortagi karo difaac dhaqaale oo kugu dhici kara kaana boqolkiiba 90 way wada haystaan Soomaalidu. marka credit cardka waynu wada haysanaa, insurankiina waynu wada haysanaa, laakiin had iyo jeer hadal ayaa ka taagan xaggii ma garanaysaa guri iibsashada. mararka qaarkood xagga dhaqanka ayaa arrintaasi ka socota, xagga diinta maaha. waxaa jirta dadkeena Soomaalida qaar guryaha iibsan karaya iyo qaar aan iibsan karayn, iyaga laftigooda loolan baa ka dhexeeya. waxaa dhici karta mararka qaarkood inay tartankaasi isu bedelo mid diiniya oo dumarka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo inaan gurigeedaba lagu tukan karaynin haddii ay lacagtaasi tahay lacag laga keenay meelo kale. anigu masaajidda badan baan halkan lacag ugu qaaday oo aan siiyey oo hadda lagu tukadaa oo iibsaday. lacagaha badankooduna waa lacaga caadiya oo la wada qaatay. marka culimadana waxaan u sheegaynay arrinkaas si fiican u eegaan. programkani waxa weeyaan program had iyo jeer iska educational oo weeye haddii aanu eegno xagga muslimiinta guud ahaan, muslimiinta dhaqaalahoodu aad iyo aad buu kobcay, waxbarashadooda aad buu kobcay. Soomaaliduna aad iyo aad bay dhaqaalaheedii waxbarashadeedu u kobcayaan. tan kale markaa imika meesha aan ka hadlayna maanta laftigeedu waa qayb kale oo Soomaalida baritaar ah inay si fiican u fahmaan. waxaan u sheegayaa haddii ay u baahdaan waxyaabo kale oo faahfaahina inay xiriiri karaan oo ku saabsan saddexda program ee mudaharaba, musharaaka iyo ijaara. maxay kaga duwan yihiin contract for deed, option to lease iyo waxa la yiraahdo buy out. saddexda program ee gaalada maxay kaga duwan yihiin saddexdan program islaamka. waxaa jira oo mararka qaarkood annaga aad iyo aad noo soo maray niman la magac baxay Islamic Council oo ah guddida muslimiinta. nimankaasi waxay u tageen kambani caadiya, kambanigaasay u tageen ka soo qaad kambaniga daqiiqda oo kale. waxay oranayaan dadka muslimiinta daqiiqdiina ma cunayaan, waxaanu doonayaa inaanu certificate ku siino kuu sheegaysa in waxaagu yahay xalaal. qofkii markaa daqiiqda iibinayay wuxuu soranaya suuq baa kaaga soo baxaya muslimiinta, waayo certificate siiya. dabeedna waxaa loo keenayaa Soomaalidii waxa la yiraahdo daqiiq xalaal ah. qofka Soomaaliga isma weydiinayo daqiiqdani halkeebay ka timid, dabeedna waa laga iibinayaa. kuwii warqadda u qorana waxoogaa lacaga ayay ka helayeen. marka waa dilaaliin weeye, laakiin mararka qaarkood ummadda Soomaaliyeedba kusii qaali garaynayaan waxyaabihii ay xaqa u lahaayeen. waxaa jirta imika kambanigan weyn ee la yidhaahdo AIG, kambaniga ugu weyn ee bixiya caymiska, ayay qola u tagtay. waxay yidhahdeen waxaan u baahannahay difaac insurance amba caymis oo muslin ah. dabeedna wuxuu yidhi haddaa badantiinta anigu waa idiin samaynaya difaac, laakiin soo qorta sidaa u doonayseen. exactly culimmadu waxay u soo qoratay sidii kii gaalada ahaa ee caadiga ahaa. dabeedna way hordhigeen kambanigan wuxuu ku yidhi allah oo sidan waa sidaan u hayno uuna sidan baa ka hadlaysa haa war waan idiin abnuuf karin. dabeedna waxay ku soo noqdeen dadkii muslimiinta ahaa ee Soomaalidii waxay yidhahdeen waxaanu idiin haynaa waxa la dhahdo takaful oo insurance muslim ah. marka waxa weeye horta deceptionka amba khaladaadku meelahaas ayuu ka dhacayaan. dad intay u tagaan kambaniye caadi ay oranayaan waxaan u baahanay arrimo muslim oo noocan ah. halkan waxaa degan 400 milyan. kristanka oo kale haddaad ka soo qaatay ma laha bangiyo kristan, ma laha yuhuuddu ma laha bangiyo yuhuude.
ma jiraan wax religion amba diin ahaan waddankan lagu bixiyo dee inaguna waddanka haddaa baynu nimi markaa qodobkaas waxaan doonayaa soomaalidu sidaas ay u fahanto programka haddaba soomaalida la siiya waa maxay weeye programka soomaalida la siiya waa saddex waa conventional iyo FHA labadaa program ayaa ugu muhiimsan waana kuwana carabta ka soo qaadanaya waa kuwii bankiga caadiga u bixin jiray oo dib loo siiyay sideeba haddaba waxaan lagu suurtageliyaa waraaqihii caadiga ahayd dowladdu soo wada qortay ayuu qolada muslimka warqad bay dusha ka saarayaan warqadaasay ku qoranayna akhwi amba sister salaamu calaykum baa ku qoran markaa warqadii gabadha soomaaliyeed bay tusayaan hoosta haddaad eegto weli waxaa ku taalla interestkii oo dhan baa ku yaal iyo wixii laga siibiyey 25 kun baa laga qaatay faylka dowladdu u imanaya iyo annaku noo imanaya warqadii sare way ka maqan tahay dabeedna intii kalaa taalla intii kalanu leenahay gabadhii annagu waa maxay qodob magacaagu kan ma yahay adresskaagu kan ma yahay interestkan ma ogashay dabeedna arrinta iyadoo saxa ayaa halkan imanaysaa laguma ciyaari karo maraykanka guryihiisa iyo mulkiyadiisa waa dhaqaalaha ugu weyn waa dhaqaale abuurka ugu weyn waa waxa kaliya waddankana ku wada socdaan markaa qof caraba iyo qof bakistaani iyo qof meel kale ka yimina sharciga ayuunbaa wada qabanaya programkaas waxaan doonaya in ummadda isu gudbiso ay ka faa'iidaysato oo ay u noqoto amba kayd noqoto kaalmo amba dee karti amba kobcin oo ay maaragtay ku dagaal tagaan mustaqbalkan ay ogaadaan in go-aanka u dambeeya waxa weeye ma arkay waxay Soomaalidu lacag extra oo 25 kun oo dollar ay u bixiso waxa aniga ugu dhacay mararka qaarkood gabadhan ka waaniyay 25 kun inaan bixin ayaa waxay samaysatay may dhageysan way soo qaadatay lacagtii iyadoo sidato kaasha ayay la timi markaa qoladii lacagta ugu approve garanaysay markii aan meesha ku imi waxay tiri nimankan igala hadal waxaan ku yiri walaalay nimankan waxaan kala hadlaa ma jirto lacagtiiba waad sidataa markii horena imaad dhageysan imikana uma malayn mayna dhageysato marka adigu bal go'aanka gaadh anigana ii soo sheeg gabadhu waxay igu tiri walaalo waxay iga tagin aniga hadaba ii turjum waxaan ku yiri walaal shaqadeedu turjumaan ma aha haddaad u baahan tahay turjumaan ordoo qof kuu turjumaan raadsado halkaa waxaan aad iyo aad igaga dhacday aniga xumaano aad u badan waxaan arkay qof aan ka cilmi badanahay ka aqoon badanahay anigoo takhasuskaygu yahay financial management laakiin gabadhaas Soomaaliyeed ay doonayso inay anigu aan iyada ka turjumo marka waxaan ka turjumayna waxa weeyaan waxa iyada aqligeeda ku jira oo aan haba yaraatay waxbana ka fahmayn dhaqaalahan sidoo uu shaqeeyo go'aankiina way gaadhay marka waxyaabahaas ayaa dhici kara waxaan ku soo noqonayaa xagga caymiska oo iyaguna doonaya program dambe inaan u dhigto caymisku waxa weeye waa difaaca guud ee ilaaliya guryaha Mareykanka haddii danab ku dhaco haddaad ku dhimato iyo haddaad ku dhacdo waa waxa kaliya ee ilaaliya difaacaas waxa weeye mararka qaarkood qofkan muslimka waxaan uu ka iibiyay saddexda program haddaad hoos u siyaagto mid waxa weeye waxaanu leenahay guriga macaashkiisana wada leenahay khasaarihiisa ma wada lihin waa mudaharaba waxa ka dhigantay gurigaaga hadduu macaasho wuu kula leeyahay macaashka hadduu laakiin khasaaro oo dumo khasaaraha haba yaraato waxba ka qayb qaadan maayo marka programka anigu ma arko program xalaala inuu yahay culimada badankooduna waxay isku raacsan tahay marka lacagta Mareykanka ee taala halkan inay tahay takalida saxda ah hadduu qofku u baahan yahay ay qawtal daruuri ka tahay amba arrin aanu ka maarmin marka caymiska laftigiisu khatar ayuu ku keeni karaa programkan dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaarinayaa haddii ay programkaas u baahan yihiin in ay nagala soo xiriiraan programkan intaas ayaan ku joojinayaa waxaan ka hadli doonaa program kale oo iyadana Soomaalida aad imika dib ugu hayo la yiraahdo contract for deed amba guri aan mulkiyad lahayn oo laga iibinayo waxay soo maray guriga 400 kun oo gabar Soomaaliyeed laga siiyay 900 kun oo ay dhigtay 250 kun oo dollar oo ay guriga haba yaraatay ka ogeyn qofkii lahaa inuu gabar qabay inuu xaas ka tagay oo ka daba iman karta guriga inuu dhaxal ka tagay oo 5 carruur uu leeyahay dhaxal guriga uu siiyay iyo inuu bankiga isagu ka qaatay lacagta midna bixiyay iyo caymiska saddexda qodob ee uu kaga xidhay ee ahaa wixii la oran jiray cost replacement market share iyo future earnings oo kala saddex program oo kala jaada qofka Soomaaliga uu doonayo inuu fahmay gabdhahaas waliba markii anigu aan waaniyay halkii ay ka joogi lahaayeen ku sii dhaqaaqay oo qaar kale gacanta qabtay oo iyaguna keenaya waxaan uga sii digayaa Soomaalida inay ka waantoobaan programka isaguna ilaado contract for deed insha Allah waxaan kaga hadli doonaa wiiga soo socda sidoo uu shaqeeyo dadka ku dhacay dadka waxaan ku dhacayaan inta badan xagga guryaha kii muslimka waa dadka caadiga ee gabdhaha Soomaaliyeed inta badan waa gabadhan nin la socon oo tala badan haysan oo kaligeed ordayso degdegaysa ayaa lagaga faa'iideystaa oo majara hababsan waa qodob oo ka baqaysa in la cadaabo laakiin hadday noqoto baqihii cadaabtu inaad 25 kun soo hormariso waxa weeye arrintaas u malayn maayo inay arrin sax ah tahay
waddankana sharciyaa jira laga dagaalamay oo laga dadka maaragtay ajaanibka hore uga soo dagaalameen oo ah waxa la yidhahdo predatory lending waxa weeye qofka madowga in si gaara loo siiyo lacaga qaaliya waa wixii dadka madow ay ka soo dagaalameen waxaa laga dagaalamay in si gaara looga iibiyo guryo qaara oo ay degaan iyagu noqdaan marka xeerar badan baa jiro waxaan qabanaya mana jirto islamic institution wax la yidhahdo programka dambana waxaan kaga hadlaya haddii ilaahay ka dhigo waxaan la yidhahdo contract for deal iyo siduu u shaqeeyo waa anigoo Mustafa Martin Maxamed waan salaamaya haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aadna waad mahadsantihiin